guud ahaan deegaanada Puntland colaad ayaa ku sii baahaysa. Maalmo ka hor waxaad la socoteen in gudaha magaalada Garowe ay rasaas ka dhacday. Maantana mar kale si ba'an ayaa loogu dagaalamay duleedka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Ciidanka PSF-ta Puntland ee dowladda federaalka mushaaraadka iyo kharashka ay ka bixiso iyo kuwa maamulkaas ee daraawiishta ayaa ku dagaalamay duleedka magaalada Boosaaso. Xitaa gudaha magaalada rasaas ayaa soo gaartay bay leeyihiin wararka qaar. haddaba maanta maxaa dhacay? waxaan ku hayaa warbixin iyo sidoo kale macluumaad cajiiba oo soo baxaya. madaxweyne xasan maxamuud go'aankiisa ugu dambeeyay waa in awood lagu maquuniyo maamulka Puntland. wuxuuna rabaa wixii ka dhacay oo kale halka la yiraahdo Baydhabo in ay ka dhacaan Garowe iyo sidoo kale Boosaaso iyo magaalooyin kale. xogtan waxaan kugu soo gudbinayaa saraakiishii maanta qaybta ka ahayd. xitaa taliye ku-xigeen iyo saraakiil muhiima ayaa ku dhaawacmay dagaalkii maanta. xamar waxaa ka socda wada hadallo u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda. dib ayayna u bilowdeen, waa ay socdaan. dowladda Soomaaliya Mareykanka waxay kala hadashay arrimo xasaasi ah. maxaa ka mid ah arrimahaas? mawduuceena ayaa kugu soo gudbinaya. wararkaas oo dhan ayaan isdul istaagaynaa. aragtidaada ka dhiibo, muuqaalka like saar, siina share garee. waa mahadsan tahay. iska horimaad culus ayaa maanta ka dhacay deegaanka Laag ee gobolka Bari, waxaana uu dhex maray ciidan ka tirsan kuwa PSF-ta Puntland iyo ciidan ka taabacsan daraawiishta maamulkaas. iska horimaadka oo socday muddo kooban ayaa la sheegay inuu yimi kadib markii ciidamo taabacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa PSF-ta ee maamulkaas oo ka yimi magaalada Boosaaso kuna sii jeeday degmada Xaafuun ee gobolkaasi lagu hakiyo buundo ku taala meel u dhow deegaanka Laag ee gobolka Bari. tallaabadaasi waxay dhalisay ismariwaa u dhexeeya labada ciidan, taas oo ugu dambeyn sababtay in ay markaasi iska hor yimaadaan ayna isu adeegsadaan rasaas. rasaasta labada dhinac ay isdhaafsiisteen ayaa la sheegay in ay hakad gelisay isu socodka gaadiidka iyo sidoo kale isticmaalka wadada deegaanka, iyadoo dadka shacabka ay dareemeen cabsi iyo walaac ka dhashay xiisada lama filaanka ah ee daqiiqado koobanba ku qaraxday. ila dadka deegaanka oo ku sugan halkaas ayaa warbaahinta u sheegay in labada ciidan ay isku horfadhiyeen goobta, islamarkaana xiisadu ay taagneed saacado badan. inkastoo la sheegay in dagaalka uusan ahayn mid aada u ballaaran oo 40 daqiiqo ku dhowaad uu socday, wax saacad ka yar ayaa la dagaalamayay, waxaana ay xaaladu tahay ilaa iyo hadda mid kacsan oo halkii lagu dagaalamay waxaa la dareemayaa ama laga dareemayaa xilliga kanba dhaqdhaqaaq. ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka Puntland ama taliska ciidanka oo markaasi lagu faahfaahiyey sababta rasmiga ee keentay iska hor imaadka iyo sidoo kale haddii uu jiro khasaare ka dhashay rasaasta ay labada dhinac isdhaafsiiseen. dhinaca kale ila amni ayaa xaqiijiyey in saraakiil ka tirsan daraawiishta Puntland iyo saraakiil ka tirsan PSF-ta dowladdu ay caawiso oo federaalka weeyaane ay yeesheen wada hadallo degdega oo markaasi looga gol lahaa in lagu qaboojiyo xiisada, isla markaana looga hortago in ay isu bedesho dagaal ballaaran oo maalmo badan qaata. sida ay sheegayaan ilo xog ogaala, wada hadalladaasi waxay ku dhammaadeen is-afgarad, waxaana lagu heshiiyey in ciidanka PSF-ta ee goobta ku sugnaa ay dib ugu laabtaan Boosaaso si loo dejiyo xaaladda amni ee deegaanka Laag ee gobolka Bari. go-aankaasi ayaa la sheegay in uu soo afjaray xiisadii taagneyd, islamarkaana dib loo furay isu socodkii gaadiidka. si kastaba ha ahaatee maamulka Puntland weli warkama uusan soo saarin xaaladan degdega ah ee xiisadii dagaal ee maanta dhacday. laakiin xiisadahan oo dhan muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada Puntland waxay ka ahaayeen kuwo caadiya. waxaana la xusuustaa in taliyaha qaybta 54aad ee militariga Soomaaliya ee dhowaan madaxweyne xasan maxamuud uu magacaabay Generaal Jimcaale Jaamac Takar Warsame uu markaasi deegaanadaasi xiisad ku hayay muddooyinkii ugu dambeeyey, taasoo keentay in Garowe iyo meelo kale iska hor imaado ay ka dhacaan. hadda wararka la helayo waxay leeyihiin xaaladdu waa mid kacsan, markasta ahina waxaa suuragala dagaal. dowladda federaaliga ee uu hogaamiyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowr jeer oo hore waxay isku dayeysay in markaasi si awooda ay kula wareegto maamulkaasi, iyada oo dowladda mandatekeeda uu dhammaaday. Saciid Cabdullaahi Dani oo la doortay January 2024 ayaa haysta muddo sharciyeed ku dhow 2 sano oo kale, taas oo meesha ka saaraysa in madaxweyne sharciga haysto oo maamulkiisii joogo madaxweyne waqtigiisii dhacay inuu duulaan ku qaado in ay sharci darro tahay.
shacab badan waxay taasi ku sheegeen in dowladda federaalka gaar ahaan Xamse iyo Xasan waxa ay wadaan aanay ahayn wax loo dulqaadan karo sida ay ku doodeen. haddaba halka muxuu yahay Puntland wixii ka dhacay Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed miya iyaduna ka hirgeli doonto mise waxaa jiri doono dad xiniyaha u garaacdo oo si adag u difaaca maamulkaas? maxaad is leedahay? nagu biir aragtidaada, muuqaalka like saar, siina share garee. waa mahadsantahay saaxiib, muuqaalkan ila daawo.